dowladda Somaliland ayaa maanta shahad sharaf ku maamustay taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxa hay'adda Miinasaarta ee Halotaras u jooga Somaliland. Shahad sharaftani ayaa waxay ku muteysteen ciidanka qaranka Somaliland iyo hay'addaasi Miinasaartu doorkii muhiimka ah ay ka geysteen banaynta jidka ay soo maraan dhuumaha biyaha keena magaalada Hargeysa. Munaasabad lagu guddoonsiinaya abaalmarin taliska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo hay'adda Halotaras ayaa maanta ka qabsoontay gudaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa. waxaana ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha qorsheynta biyaha taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland maarayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa madaxda hay'adda Miinasaarta ee Somaliland madaxa sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF iyo howlwadano kale oo ka tirsan mashruuca biyo ballaarinta ee magaalada Hargeysa. ugu horreyn waxaa munaasabadani faahfaahin ka bixiyay doorka ay ka qaateen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo hay'adda Halotaras banaynta jidka ay soo maraan dhuumaha biyaha keena magaalada Hargeysa. maarayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa mudane Maxamed Cali Daarood waxaana hadaladiisii ka mid ahaa beebka Geedeble ilaa Hargeysa 23 kiiloomitir oo Geedeble ilaa Hargeysa u dhaxeeyay runtii waxa jiray qayb 300 mitir dhererkeedu yahay oo ku jiro dhagax ilaa 25 mitir oo kala duwan ku dhex jiraan dhagaxaas oo dhagaxaad oo adag shirkadda ka shaqeynaysay waxay ku kadeedantay hawshaas muddo sanada hawlahaas dawladda Somaliland gaar ahaan ciidamada militarigu ciidamada qaranka Somaliland iyo hay'adda Halotaras runtii iyadoo ka baxsan sida caadiga ah hawlaha ay qabtaan ka baxsan haddana ciidanka militariga Somaliland oo hay'adana la shaqeyso runtii waxay garowsadeen ciidamada qaranku inay mashaariicda horumarineed ee infrastructure ee wadanka socdaan runtii hawsha inay ka caawiyaan dhagaxa beebku in xandibay Geedeble ilaa Hargeysa 23 kiiloomitir oo ilaa 25 mitir ku firqsanaha ciidamadeena iyo ciidamadeena militarigu iyo hay'adda Miinasaarta Halotaras runtii waxay ka galeen door weyn iyagoo inoo suurageliyay in dhagaxa meesha laga saaro. taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani iyo madaxa hay'adda Halotaras u jooga Somaliland Mrs Jane ayaa uga mahadceliyay dowladda Somaliland abaalmarintaasi ay guddoonsiiyeen. waxa weeyaan waajib annaga xaq la nagu lahaa biyaha ummadda oo dhan baa u baahan annaguna ummadda u baahan baan biyaha ka mid nahay ciidankuna wuxuu u dhisan yahay danaha ummadda inuu ilaaliyo tana waa danihii ummaddu bay ka mid ahayd marka la shukra cala alwaajib waa waajibka iyagu gudanay weeye iskuma haysanayna wax weyn qabanay laakiin hadda idigu nagu amaanteen de waa mahadsantihiin annagu soo waajib xaq la nagu lahaa gudanay weeye aad buu maarayuu mahadsan yahay wixii kale marba soo kordhana diyaar baanu nahay qaranka uu leeyahay madaxweynaha nagu hogaaminayay de hawlahaas oo kale inaan qabano waa madaxweynuhu waa taliyaha ciidanka ciidamada qalabkiisa oo dhan weeye marka hay'adana waxaan leenahay biyahana waxaan leenahay xiriir wanaagsan baan wada leenahay biyuhuna waa noloshii ummadda oo wajacalna min almaa'i kulli shay hayyin waa khaliilo waa noloshii marka waa meel halbowlaa marka in lagu tuutuursado waajib ahayd waan mahadsantihiin. We will continue to support and collaborate with the Hargeisa Water Agency if there are any further requirements. And in addition to that, we're working closely with the national authorities to set up a residual staff that will deal with residual risk once Halo exit the country in a few years' time. A part of that is the explosive hazard management work that we are currently undertaking with the ministries, particularly the Ministry of Defence, with the Ministry of National Planning, the Minister, and also with the Army. gabagabada munaasabadana waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyey wasiirada wasaaradaha qorsheynta iyo biyaha ugu dambeynna wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland ayaa shahad sharaf ku maamusay taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani iyo madaxa hay'adda Halotaras u jooga Somaliland Mrs Jane. runtii aad bay farxadii u tahay inaan ka soo qayb galo muxuu ahaa munaasabadan iyadoo shalay ahayd maalintii ciidanka qaranka maantana jaayisad lagu guddoonsiinayo taliyihii ay tahay muxuu ahaa sharafna la shalay la siinayo ciidanka maantana taliyihii halkan aynu ku siinayno hawshii ay qaranka u xilsaarayna hore waa ogey ciidanku inaan dalku nabadgelyahay waxa kugu daliila markuu ciidanku u baydho wax qabadka iyo dhismaha dalka markuu u baydho waxay markaati ka noqonaysaa dalku inuu nabad yahay
waa kugu boorinaynaa taliye adiga ciidankaagaba hawsha aad qabateen iyo waajibkii hore soo gudatay ka dambe gudan doontaa haddii la yiraahdo waad sheegtay waxaad tiri waa waajibna saaran waa run laakiin de waa in la isu sheegaa in la isu ogyahay aad iyo aad baan ku hambaleynaynaa kusoo dhawo wasiir aad iyo aad baan taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aan ugu mahadnaqayaa hawsha wanaagsan ee laga markhaati furay ee uu ka geystay suurtagelinta ah in Hargeysa biyo ku filan la soo geliyo iyadoo ay waajib saaran tahay iyadoo ay dantiisa iyo danta ciidankiisuba ay ku jirto haddana mas'uuliyad gaar uga saaran ma jirto inuu markaa garto inuu maxaan ku raahdaa ka qayb galo oo wixii uu hayay saanad kaga qayb galo sidii loo banayn lahaa wadada qasabadu soo marayaan waa mid gaar ugu amaanan yahay waxaan kaloo ku ammaanayaa nabadgelyada guud ee ciidanku faran yahay hay'adda Hello Trust oo iyadoo aanay shaqadii gaarka ahayd ay u xil saarnayd aanay ahayn aqoonteedii iyo khibraddeedii inuu ku maxaan ku raahdaa inala qaybsaday sidii jidka biyuhu ay u banaanaan lahaayeen waxaa la isticmaalay miino aad iyo aad u fara badan waxaa muddo gaadhaysa ilaa 2 bilood iyo sarif la socday la waday oo ka soo bilaabmaysay bishii December sanadkiina soo dhaafay iyo bishan January qaraxyo badan oo istaba jooga oo lagu baneeyay 6 mitir oo meela iyo 30 mitir oo meela oo dhagax adaga lagu baneeyay shaqo culus baa ka dhacday waxa halkan aanu uga mahadnaqnay kuna maamusnay sida ay la socoteenba shahaad sharaf taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu iyana shahaadad sharaf la mid ah aanu ku maamusaynaa Hello Trust oo aanu ay ku mutaysatay shaqada ay qabatay iyadoo gaar ahaan aanu gacanta ka gelinayno Jane Strongway